الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا ليال إله النبي صلى الله عليه وسلم حشودكي ويناشري وإله سبحانه وتعالى حشودك وينقدونه يو أيان كسر جرني حين كسر جرني وحيابه أما قضبة عاد وفر أتربضن حدين قضبة ذا كسف سنانو إن نهلنو وحلو يقانو الحشود الحياة qodobadaas إن شاء الله تعالى wax kastaba dadaal bay u baahan yihiin الدلال الاجتهاد في كل الأمور لابد أن يفعل المرء اجتهاد يدلال إن wax kastaba uu wanaagsan oo isaga khayr iyo barwaaqo u keenayo qofka inuu ku dadaalo waa shay aad iyo aad u wanaagsan shayga wanaagsan haddii aan lagu dadaalinna qofku shayga xun ayuu ku dadaalayaa ama wuxuu ku dadaalayaa caajisnimo inuu noqdo oo dadaalka xoogga wuxuu saarayaa caajisnimo shayga wanaagsan lagaga maarmo in lagu dadaalo ama waa in aad shayga wanaagsan ku dadaashaa ama waa inaad ka gaabisaa oo aad wax kale oo xumaana ama wax kale oo aan wanaagsaneyn aad ku dadaashaa labada qodob ayay u qaybsamayaan markaana haddii aad shayga wanaagsan maanta ku dadaali weyd wuu ku dhaafayaa fursad baa haysataa inta adduunyada ku nooshahay waxaa fiican shayga wanaagsan inaad ku dadaashid xishoodku waxyaabihii aad iyo aad u tiro badnaa ee ilaa gaarayay 32 meelahaas ilaa 30 buura laba u maleenayaa in ay naga khasaarayaan ama macnaha dee wax weyn ay ku fadhiyeen laakiinse ilaa 30kaas insha Allah taala waxaan u arkaa 30kaas inay yihiin 30 muhiim ah oo haddii lagu sifaysnaado ama 30ka la dhaqaajiyo in meel weyn laga gaarayo xishoodka iyo wanaagaba muhiimadda aynu u noolnahayna waxa weeye wanaag inaynu siyaadsano xumaanta inaynu ka cararno akhlaaqda wanaagsan inaynu u soo dhawaano inaynu isku sifaysnaano si beri ka maalin ay wax inoo darto ay inoo anfacdo maxaa yeelay qofkii maanta is hagaajiya beridiisa ayuu u hagaajisanayaa macnaha maanta waxa weyn macnaha kuma qaadanayo tusaale ahaan qofkii akhlaaqda wanaagsan maanta ku dadaala beri ka maalin ayaa lagu dhahayaa qofkaas waa run badne ama waa la aamina ama waa sidaas maxaa yeelay akhlaaqdan in badan ayuu usoo fadhiyay akhlaaqdan iyo wanaaggan in badan ayuu soo barayay naftiisa markaana akhlaaqda la amaano beri waata in badan soo jirta waata qofku in badan uu ku soo dadaalayo in badan ayuu soo baranaya sidaas oo kale haddaynu iska bilaawano faa'iidooyinkeeni ama waxyaalihiinu ku saabsanaa in xishoodka lagu sifaysnaado haddii aad waxyaabaha ku sifaysnaatid insha Allah taala waxaynu maanta ka bilaabanaa tacwiidul walad an yaqala ala ukhtihi wa yakhruju ma'aha tawsilaha yatrukuha wahdaha in wiilka looga dhaqan dhigo in walaashi oo u qiiroodo ama markay xumaan samayso oo macnaha qofkaas uu isbedelo oo uu bedelo dhaqankeedii oo uu bedelo in iyadoo xumaantii sameynayso uu ka qabto in wiilka yar looga caada dhigo wiilku intuu yar yahay in looga caada dhigo maaha qofka weyn inuu sameeyo taas waxa weeye dee qofkii ka taga waa akhlaaq xumo qof weyn oo walaashii iyo qof walaashiya oo akhlaaq xumo ku dhaqmasa oo uu daawanayo ama uu dan ka lahayn waxa weeye waa dhaqan xumo oo qof dhintay kaas laakiin waxa la sheegayaa wiilka yar markuu soo barbaarayo in looga caada dhigo ama la baroba in walaashii oo u qiiroodo iyadoo xumaan sameynaysa ama dhaqan xumo sameynaysa in uu isbedelo oo uu macnaha isku dayo in uu macnaha wax fuliyo oo uu ka qabto xumaantii hadduu carab kaga qaban karo iyo hadduu gacan kaga qaban karo iyo hadduu wax kale kaga qaban karaba in uu kaga qabto qoftaas markaana waa wiilka yar ayaa la barayaa sidaad u bari lahayd adiga ku jirta sidaad ciyaalkaaga uga dhigi lahayd dad wanaagsan aday ku khusaysaa adigaa la doonayaa inaad u dadaashid adigaa la doonayaa in caqli uu isticmaashid maxaa yeelay qofku wiilkiisa yar markuu korinayo oo uu wanaagiisa ka shaqeynayo dee kun wax buu isku keenayaa maanta dadka ciyaalkooda jecel haddaa u timaadid kun waxyaabood bay u hayaan oo way u soo ururiyeen oo way u habeeyeen sidaa adduunka ugu habeenaysid sidaas oo kale akhlaaqda wanaagsan waa inaad u habaysaa maanta macnaha qofku waa awlaadiisa inuu dhargiyo oo uu calooshooda u buuxiyo oo uu wax siiyo macnaha inuu taa ku mashquulo muhiimadda oo kaliya maaha qofkan waa inaad iimaankiisa dhistaa wiilka yar waa inaad
ilaahay subxaanahu watacaala ku xidhaa waa in akhlaaqda wanaagsan aada bartaa mustaqbalka usoo socda mid hayin u ah oo diyaarsan kara oo macnaha meel marin kara ama ku guuleysan kara waa inaad ka dhigtaa. laakiin haddii aada cunto isku siisidoo macnaha iska raaxayso tiraadid taas waxa weeye adaa qofkii yara baabiyey. almuhim qofkan waa inaa u kaydisaa ama u dhistaa siduu mustaqbalka waxyaalaha ku imanaya ugu hortegi lahaa, waxyaalaha waawacanna ugu sifaysan lahaa. markaana adiga unbaa lagu doonayaa. waxaa laga yaabaa ciyaalka in cuntada laga dhargiyo iyadoo la doonayo mustaqbalka inay weynaadaan oo ay noqdaan dad xoog leh. sidaas oo kale qalbigooda iyo iimaankooda iyo akhlaaqdoodaba iyo xishoodkoodaba u kordhi oo mustaqbalka ka dhig kuwa xayaa iyo xishood iyo iimaanba ku sifaysnaaday. markaana waa inuu u ogolaan keligeed inay baxdo. gabadha walaashaa ah waa inaadan u ogolaan keligeed inay safar aado. safar iska badaaya bixitaan, hadeer safarkii wuu iska badan yahay. intaas safar baa la iska raacayaa. aabihii baanan xitaa gabadhiisu markay safraso aan sidaa u eegin, iska badaa wiilkii. markaana dhinaca diinta haddii laga dumo, dhinaca akhlaaqdana laga dumo, noloshu ma dhismaso. noloshu wareer iyo bilaaguul iyo in yaroo uu ilaahay subxaanahu watacaala kaa siiyo. maadaama ilaahay subxaanahu watacaala waman yuriidu thawaaba addunya fa cinda allahi thawaabu dunya waalaakhira, kii doonaya adduunyada thawaabkeeda ogow qofkaasow hamoodin aakhiro keliya in ay thawaabka aakhiro keliya uu ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa yaalo. dad badan baa qofka markuu ilaahay ka baqo uu cibaadaysto oo dariiqiisa raaco oo diinta ilaahay subxaanahu watacaala uu dhaqan geliyo, waxay dhahayaan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu hayay adigu u doontay. ka fakeri maayo oo isdhihi maayo war aduguba adduunyada aad doonaysid iyo diinta aad dhaqan gelin weyday oo aad ka tagtay, adduunyada laftirkeeda aad doonaysid sida ilaahay subxaanahu watacaala aakhiro uu u hayo sidaasoo kale uu u hayaa. markaana waa ima ilaahay subxaanahu watacaala inaad ka doonataa adduunyadiisa iyo aakhiradiisa, ama waa in aad faraha ka qaadaa adduunba. waa inaad faraha ka qaadaa. dee miyaa laga qaadayaa adduunyada faraha lagama qaadayo. qofku wuxuu samaynaya ilaahay buu caasidayaa, meel kaleu doonaya inuu adduunyada ka doono, kama helisid meel kale. ilaahay subxaanahu watacaala fa cinda allahi thawaabu dunya waalaakhira, ogow ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa abaalmarinta adduunyo iyo ta aakhiraba isaga ayay taalaa. markaana qofku adduunyada macnaha wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala ka siiyey ee wuxuu ilaahay u abuuray inuu ka shaqaysto. maxaa yeelay qof kastaba ilaahay waxbuu u abuuray. waxaas ku mashquul, inta kalena cilmigaaga iyo ilaahay subxaanahu watacaala sidaa ugu dhawaan lahayd iyo cibaadada ka fakr. almuhim alcibaada. xitaa cilmiga hadduuna ilaahay subxaanahu watacaala kuu furin, shayga ugu muhiimsan ugu wanaagsan waa cibaado. waa ilaahay subxaanahu watacaala inaad ku xilnaatid. waa ilaahay subxaanahu watacaala inaad heshid macnaha cabsidiisa. cadamu dukhuul calaa man yaakulu ilaa biqayri qasdin. halkanna waxay ka sheekeynaysaa inaadan u gelin qofka wax cunaya. qof baa macnaha soo booqanaysaa ama saaxiiba aad tihiin, qofkaas hundhayl buu ku jiraa waxbuu cunayaa, ama xaafad buu u balansan waxbuu cunayaa, ama cunto isaga khaas u ah ayuu cunayaa. markaana qofkii inaad u timaadid xiliyada uu wax cunayo iyo xiliyadaas waxa weeye waa ma banaana. waxa weeye waa bilaa xishood. macnaha waa bilaa xishood. qofku waxaa la doonaya xitaa hadduu saaxiibkaa yahay dee oo wax kaa siinayo, saaxiibadu way kala duwan yihiin, dad khaasaa jiro markasta waa isku iman karaa. laakiin qofkanu macnaha isagay khusaysaa akhlaaqdiisa wanaagsan. qofkan wax cunaya markaa u timaadid, hadduu wax kaa siinayo, hadduu macnaha uu diidayo inaa u timaadid, hadduu diidayo inaa la joogtid, hadduu diidayo in ma garanaysaa imaanshaha u imaanaysid inay ku adag tahay, waxaas isagay khusaysaa. inagu kama hadlano isagu wuxuu diidayo, laakiin waxay ka hadlanaa akhlaaqnimo keebaa kuwa fiican. maxaa yeelay haddii aad weydid qof macnaha culays siisanaya imaatinka aad u timaadid marka uu wax cunayo ama markuu mudheelka ku jiro culaysanaya, haddii aadan arkin oo aad u tagtid qof aan culaysanayn oo macnaha imaatinkaaga waxba aan lahayn oo xilligaa doontid aa u imanaysid, waxaa jira malaayiin qof oo culaysanaya. dadku isku wada mid maha, bal iska badaaya dadkao dhan way culaystaan. markaana waxaa sameynaysaa aduu akhlaaqnimo waxaa ku wacan xiliyada wax la cunayo, ama qofku xilliga uu wax cunayo, ama qofka haddaa aragtay meel wax lagu cuno in uu galay oo uu dalaq yiri ha u gelin
adigoo aanan la soo xiriirin isagoona ku fasixin waxyaabahaas. maxaa yeelay qofku wuxuu isdhahayaa de qofkan saaxiibka ay ku yimi soo dhaweey oo isna waxaad cunaysid oo kale sii, inuuna hayn baa laga yaabaa oo ay culays ku tahay oo isagoo keligii waxaan iskula talagalay. markaana almuhim waxaa sameynaysaa insha allahu tacaala qofkaas ha u gelin xiliyada uu wax cunayo al-istidaan cinda dukhuul khaasatan cala alwaalideyn aw keyrahum. qodobka 38 qodobka soddomaad waxaa weeye qofku inuu istidaan la yimaado oo ka idin dalbo qofkuu u gelayo, ama waalidiintiis ha ahaadaan ama qol kale oo ay degan yihiin gabdho ha ahaadaan ama walaalihii gabdhaha walaalihii ama kuwa kale maxaarimtiisa cidduu guriga la degan yahay. almuhim cidda guriga la degan yahay wixii dumar ah waa inuu iska ilaaliyaa inuuna dalqas ka dhihin oo inuu iska gelin, waa inuu iska ilaaliyaa. sababtoo ah qofkii waxaa laga yaabaa inuu iska hurdo oo yaro qaawan yahay, waxaa laga yaabaa inuu qofkii maryaas ka bixinayo. almuhim waxaa la doonayaa qofka aad u gelaysid hadduu dumar yahay, hadday doonaan dad ehelkaaga ahaadaan, waa inaad ku gargaraacda al-istidaan. intaasaa laga wadaa ka idin dalab in aad soo gasho, inaa albaabka ku gargaraacdid ama aala hadashidba, labadaba waxa weeye waa istidaankii ayay soo gelaysaayo. macnaha waxaa ka wadaa hadday albaabka ku gargaraacdid ma soo galaa ayaa ka wadaa. taas waa dhaqan wanaagsan. gurigiina markaad joogtid, meel kastaba, guri kastaba markaad gelaysid, qol kastaba markaad gelaysid, waxaad sameynaysaa albaabka gargaraac oo meelaha ay dumarku degan yihiin oo dhan albaabka gargaraac. maxaa yeelay adigana xayaa ahaan iyo xishood ahaan sidaasaa ku wanaagsan oo qofka ceebtiisii ma arkaysid, qofka kalena isagana sidaasaa u wanaagsan oo ceebtiisii ayaad macnaha leedahay ceebtaada dabool hadduu ceebtiisii ay banaanka taalo. markaana almuhim waa akhlaaq wanaagsan. dadka guriga kula jooga inaa akhlaaq wanaagsan kula dhaqantid waa almuhim. waa wax adiga iyo ehelkaaga iyo dadka guriga kula jooga wax inii ah macnaha akhlaaq wanaagsan iyo nolol si farxada ku noolaanaysaan, si walaaltinimo, si isku imaatinka, si wanaaga. laakiin haddii ma garanaysaa khalaas balaas meeshii ay taalo oo ay foodo iska taalo, waxaa laga yaabaa inaad dadka isku dhacdaan oo xaafadiina iyo ehelkiinaba aada iskhilaaftaan. markaana qof kastaba xuquuqdiisa uu ilaali. qof kastaba hadduu yahay ka yar, hadduu yahay ka weyn, hadduu yahay ka kuleeg, kuwaas oo dhan xuquuqahooda uu ilaali. maxaa yeelay qofka xuquuqdiisa haddaa u ilaalisid inaad si wanaagsan u wada socotaan oo si wanaagsan u wada sheekaysataan oo meel wanaagsan ka jaan qaadaan ayay caddayn u tahay ama ay ku ridaysaa. marka adigu sidaa uun u fakar. alqadab cinda ru'yati lmunkaraat, tan waa muhim. qodobkan waa qodob aad iyo aad u muhiim u ah. maxaa yeelay bulshada islaamka maanta haddii aad aragtid waxaa arkaysaa munkaraadkii baa la eegayaa. kii mas-uulka ummadda ka ahaa ee ummadda maamulayay ee madaxda u ahaa baa malaayiin munkaraad buu suuqa ku arkayaa, danka ma laha. waxan waa lagu weydiinayaa, adiga waa lagu weydiinayaa. haddii aad mas-uul tahay waa lagu weydiinayaa. aayar u imow waxaad tiraahdaa waxan munkarka ee ilaahay subxaanahu watacaala una raali ka ahayn, diintuna ay xarimtay, ummadda ka dhexdaa. haddaa ka dan weydid waa lagu abaal marinayaa. markaana qofkaasu ummadda mas-uulka u ah waa in uu macnaha ka fakeraa habeen iyo maalin siduu ummadda u hagaajin lahaa, dhinaca diinta weliba uga hagaajinaya, diintiisana uu u difaaci lahaa. hadduu intaas sameeyo ilaahay subxaanahu watacaala awood iyo sharaf iyo boos iyo makaano ayuu siinayaa. fa ina alcisata lilaahi jamiica. ilaahay subxaanahu watacaala cisada iyo sharafka isaga ayaa laga doonaa. ciso iyo sharaf haddaad doonaysid ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa ka doon ee ha ka doonin bini aadanka agtooda ha ka doonin. maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa haddaad ka doontid waa helaysaa, meel wanaagsan baad ka helaysaa. tusaalahaan haddaad biyo u baahan tahay ceelka aadaysaa soo maaha. haddii aad ceelka aadi weydid ka waran waa meel kale aadid, waxaweye kama helisid. marka cisada booska cisada meesha laga doono waxaweeye waa cinda allaahi. haddii aad cinda allaahi ka doontid ilaahay subxaanahu watacaala wuu ku siinayaa. laakiin haddii aad meel kale ka doontid waxaa ka mid tahay ama waxaa la mid tahay sidii kii biyaha ka doonay meel aan ceel ahayn. meel aan ceel ahayn baa biyo ka doontay, biyana lagu ogeyn ama banaana oo beriya ama saxaraha aan waxba ol ayaa ka doontay. dee miyaad ka helaysaa? may kama helisid. markaana waxaa la sameynayaa
qofku alqadab cinda ru'yati lmunkaraat munkaraadka waa inuu u cadhoodaa munkaraad waxyaale waxaa jira munkaraadka oo xumaan ah oo macaasiya oo dunuub ah oo dulmi ah oo dulmiga ilaahay subxaanahu watacaala ayaa xarimay xarimnaan oo ilaahay subxaanahu watacaala xarimnaan u xarimay daraaddii u diid maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala ummadda wax kama xarimo ilaa xumaan iyo mafaasid iyo dhibaatooyin ayay usoo jiidaa waxaas ummadda ilaahay subxaanahu watacaala waxba ma amro ilaa wuxuu amray waxay u tahay masaalix iyo wanaag iyo noloshooda wanaagsan ayaa ugu jirta dadkaas markana almuhim ha noqon sida dadka sifahada ee bilaa caqliga ee waxay doonaan iska qasta laakiin dastuur ku soco xumaanta ka cadhood oo meel aad fulin kartid ama meel aad macnaha xumaantii ka masixi kartid oo ka taatiri kartid haddii aad joogtid xumaantaa taatir oo ka hortag oo meesha ka masax oo meesha halaga waayo tusaalehaan xaafadda adigu leedahay ama adigu aabba ka tahay baad joogtaa ciyaalkaagii iyo gurigii iyo wixii markay xumaan sameeyaan dee meesha waxa weeye adaa haystee adaa aabba ka ah meeshan waxaa samaysaa xumaanta ka taatir waajib ayay kuu tahay meel aad ka hadli kartid oo hadal keli ay u baahan tahay ka hadal meel aad isaga tegi kartid oo marka xumaanta la sameeyo aad ilaahay dartii isaga tegi kartid isagaga tag meesha ha fadhiisan almuhim qofkii man ra'aa munkaran falyuqayir biyadihi fain lam yastatic fabilisaanihi fain lam yastatic fabiqalbihi culimaduna waxay dhahaan qofkii doonaya inuu alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar sameeyo marka hore qalbigiisa waa inuu alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar kusoo sameeya qalbigaaga marka hore kusoo sameeya marka hore waa inaad tahay mid xumaanta neceb marka hore waa inaad tahay mid wanaagga jecel markaa qalbigaaga alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar ku samaysid oo ay jawaarixdaada iyo naftaada wanaagga soo amartid xumaantana kasoo qabatid markaas ayaa dadka waxaa la iman kartaa wanaag markaas ayaa ka dhidhiyaysaa ama macnaha diidaysaa in xumaanta ilaahay subxaanahu watacaala xarimay oo xumaantu xarimay la sameeyo markaasaa ka xanaaqaysaa oo diidaysaa oo isku dayaysaa inaad bedeshid laakiin haddii aan marka horeba dee danka lahayn dee waxaa weeye wax isbedelaya waxaas waxba keeni maysid qodobkeena ugu dambeeya haddii gabadhu ay dhibsato axad rijaal dhimanka qaar ka mid ah hadaladooda ay dhibsato ay hadalla xunxun ku dhahaan oo ay macnaha waxyaalaha la galaan hadalkiisa ha jarto maxaa yeele qofka maanta ku caaya ee qofka maanta hadallo xunxun kugu dhahaa haddaa gabarh tahay ee sharaftaada macnaha dib uga dhaca oo sharaftaada lumiya oo xoogaa cayb kuu quurayba cayb xunxun adigii qofkii soo dhaweynayo macnaha dee qofku way jirtaa ma mar inuu khaldamo laakiinse qofkii hadduu kuu quuro cayo marar fara badan oo intaas ka kaacayo dee waxba kuma sawado qofkaasu haddii aad gabar tahay waxba kuma sawado markaan qofka hadduu kun mar ku caayo ama in far badan ku caayo qofkaas nimanka gabdhaha ixtiraama iyo nimanka dadka gabdhaha ka xishooda maahee warkiisa iska jar ayaa laga wadaa laakiin qofku maha mar inay ka dhacdo iyo mar inuu ku caayo iyo mar inuu meelaha galgalo maha laakiinse qofku hadduu ka caada dhigto inuu iska kacaayo oo iska kaamaago adoo qof dumar ah waxa weeye ninkan xishood kuma haye albaabkiisa xig waxaynu kusoo jirnay walaalayaal qodobadii ayaynu kusoo jirnay in badan maantana waanu dhameynay insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad leh waxa weeye waa 5 fadhi baanu u maleynayaa inaanu ku dhameynay 5taa fadhi waxaanu kasoo hadlaynay sida loo kasbado xishoodka kii ka faa'iidaystana aakhiro iyo adduunna wuu is anfacayaa oo qofkaasi meel ayuu gaarayaa kii ka faa'iidaysan waayana waxa weeye waa qof macnaha dee isagu isdilay saas oo kale waxaa la yidhi qofkii ilaahay subxaanahu watacaala ka xishooda isagoo ilaahay adeecaya ilaahayna wuxuu ka xishoonayaa isagoo oo dembi sameynaya ogow abaalmarintii ayaa lagu abaalmarinayaa abaalmarinta wanaagsan waxaa fiican ama waajib ah in ilaahay subxaanahu watacaala aa ka doontid maanta waxaa laga yaabaa kuwa in adduun yar laga xarimo iyo in wax yaroo adduuna loo diido macnaha u dadaalaya haddii adduunka loo diido macnaha ay sameynayaan shay aad iyo aad qariib u ah ama ay xanaaqayaan ama ay isbedelayaan ama ay doonayaan waxaas adduunka inay sasabtaan markaana
inta adduunka sasaban lahayd marka hore bal aakhiro soo sasabo oo camalka wanaagsan kusoo dhaqan bal hadhowtana eeg inuu adduunku ugu adkaado. adduunku uma adkaanayo haddii aad aakhiro meel soo saartid oo ilaahay subxaanahu watacaala xiriirkiisa kusoo dadaashid isagaa kuu filan. markaana wuxuu yidhi ninkaasu qofkii ilaahay ka xishooday isagoo adeecaya ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka xishoonayaa isaga oo dembi ku jira. ogow ilaahay subxaanahu watacaala awoodaada iyo xishoodkaaga iyo wanaagga haddaad geysid wanaagaaga oo dhan ilaahay subxaanahu watacaala isna wanaaggiisoo dhan adiga wuu ku keenaya. laakiin haddii aad bini aadan isku mashquulisid oo wanaaggiisa raadisid, bini aadanku waa iska daciif. kii wax ku ahaa, kii wax kuu qabanayay, kuu jeclaa baa laga yaabaa inuu kuu soo jeesto oo iska kaanaco ama lagugu diro ama uu ku xaasiyo ayaa laga yaabaa. waa iska bedbedel badan yahay. laakiinse ilaahay subxaanahu watacaala haddii aa wanaag ula timaadid waa dhargaysaa. ilaahay subxaanahu watacaala waad dhargaysaa. markaa waxaa ku mashquulisaa ilaahay subxaanahu watacaala sidaad wanaag uga iman lahayd. waxaynu kaloo ku daranaa xadiis nabiga sallallahu calayhi wasallam uu asxaabta ku yiri istaxyu min allahi xaqa alxayaa. ilaahay subxaanahu watacaala waxaad ka xishootaan xishoodkiisa dhabtaa ka xishooda. waxay dhaheen nastaxyi walxamdulilah. ilaahay subxaanahu watacaala waan ka xishoonnaa waa alxamdulilah weliba intaas ayaa nugu filanoo ilaahay ayaa mahad iskale. markaa nabigu sallallahu calayhi wasallam uu fahansiinayaa xishoodku wuxuu yahay. nabigu sallallahu calayhi wasallam waxa weeye waa caalim, waxa weeye waa cilmi weyn ayuu xambaarsan yahay. iskama hadlayo ama shay bala yacni kuma hadlayo, laakiin nabigu sallallahu calayhi wasallam dintuu leeyahay buu doonaya inuu ka fahansiiyo. laysa dak warkaa maaha kan sheegayo kaas maaha ee way ka weyn tahay tan. waa xishoodkii ka weynaa. oo xishoodkii weynaa wuxuu soo hosgelayaa kii yaraa baa soo hosgelayaa. waa haddii qofka xishoodkii weynaa laga helo kii yaraana waa laga helayaa. laakiin qof kii yaraa keliya laga helay waxaa laga yaabaa in kii weynaa laga waayo. kii weynaa in laga waayo waa laga yaabaa qofka hadduu xishoodka yar uu leeyahay keliya ka weyn ma laha, ama kama dhalanayso inuu ka weyn leeyahay. hadduu ka yar leeyahay kama dhalanayso inuu ka weyn leeyahay. laakiin hadduu xishoodka weyn leeyahay way ka dhalanaysaa xishoodka yarba inuu leeyahay. laakiin waxaa ugu daranba qofka aan xishoodkii yaraa iyo xishoodkii weynaa ana lahaynba kaasaba ugu daranba. nabiga sallallahu calayhi wasallam xishoodku kaama aha buu yidhi. walaakin ilaahay subxaanahu watacaala xaqa alxayaa inaad ka xishootid xishoodkiisa dhabtaa inaad ka xishootid an taxfada ara'sa wamaa wacaa. inaad ilaalisid madaxa iyo wixii ku hareeraysan ee u dhadhowba wuxuu koobay inaad ilaalisid weeye. waxa weeye waa indhaha ilaa ilaalisid, waadan xumaan ku daawan ku arag. waa afka inaa ilaalisid, inaadan xumaan ku hadlin. waxa weeye waa sanka inaa ilaalisid, inaadan xumaan ku urin cadar xaaraana iyo waxyaalo udgoona oo xaaraana oo laga xaaraantinimay oo qof uu leeyahay oo uu kuu diiday inaad iska mirsid oo ku ursatid. waxa weeye waa dhagaha inaa ilaalisid, in heesaha iyo waxyaalaha aad ku dhagaysid iyo xanta iyo waxyaalahaas madaxa ilaali iyo wixii ku hareeraysan ama wuxuu koobo. walbadna wama xawa iyo calooshu iyo waxay koobto. calooshu iyo waxay koobto waxa weeye waa caloosha, waa wixii gelaya oo dhan, waa cuntadii, waa raashinkii kala noocaha, waa biyihii, waa sharaabkii iyo wuxuu koobay oo uu ka mid yahay farjigu. oo farjiga waxaa ka ilaalisaa xumaanta. sinada iska ilaali, sinada waxyaalaha u yeedhayo qofka iska ilaali, sheekaysiga badan, shukaansiga maalaa yacniga ah, shukaansi iska siniin socda ama aan la garanaynba. shukaansigan qasdiga laga leeyahay jacayl qofku jacayl iska hayo uu dhahayo jacayl baan yahay bas oona lahayn oon ku niyeysanayn guur iyo waxaas. almuhim in farjiga ay ilaalisid waa wax ilaahay subxaanahu watacaala aad ku raali gelinaysid. ilaahay subxaanahu watacaala waa wuxuu barwaaqo iyo khayr kugu siin doono. walbadna wamaa xawa tadkuru lmowt walbalaa. oo aad xasuustid geerida iyo balaayada xasuuso oo geerida xasuuso oo maalinta yawm alqiyaama xasuuso waxa dhici doona iyo balaayooyinka iyo imtixaanka halkaa yaala iyo maalintaas siday u daran tahay xasuuso. qofkaas ayaa ka xishooday ilaahay subxaanahu watacaala si dhab ah. qofkaas ayaa ka xishooday. waxaynu kusoo koobanaa walaalayaal hal qiso oo sheekh weyn martay, suldaan culamaa sheekh la dhaho
suldaanu culamaa sheekhaas wuu u fatwoon jiray dadka markaa dadku su-aalay weydiin jireen nin baa maalin u yimi su-aal buu weydiiyey su-aashii wuu uga jawaabay ninkii baa tegey ninkii markuu tegey ayaa suldaanu culamaa caalimkii ummadda ayaa wuxuu ogaaday su-aashaasu inay khaldan tahay siduu uga jawaabay inay khaldan tahay ayuu ogaaday hadhow ilaa ninkii wuu tegay wuxuu sameeyey nin buu kiristay ninkii markuu kiristay wuxuu yidhi niyow intaad soo wareegtid magaalada iyo dhinacuu ninkuu dhaqaaqay waxaad samaysaa sheekhii suldaanul culamaa su-aashaas wuu ku khaldamay su-aashaas qofkii uu uga jawaabay qofkaasow su-aashaasi waa khalad ku dheh su-aashaas waa su-aal khaldane ha qaadanina ninkii baa tegey magaaladii buu galay dadkii o dhan buu u sheegay ilaan beriga microfon iyo waxa ma jirin darkii buu ku wareejiyey war sheekhiisa sida kamuu xushan in lagu dhaho macnaha waa maxay sheekhan su-aasha ku khaldamaya inay ku ogaadaan inuu su-aashan garan waayo kuwa laga yaabaa maanta haddii ma garanaysaa su-aal la weydiiyo iyagoo ayna garanayn inay iska dhex galaan walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika canhu mas-uula ilaahay subxaanahu watacaala waxyaalaha aadan cilmi u lahayn wuu kuu diiday inaad ka jawaabto oo aad iska gasho wuu kuu diiday ilaa aad wixii soo baadho aad soo hubiso aad soo ogaato maahane markaana kuwaas su-aalaha aan garanayn maanta waxaa laga yaabaa kuwo fara badan in ay iska dhex galaan oo ay iska jawaabaan oo ay isku dayaan wixii inay ka jawaabaan waxa noo dirsan almuhim waxa weeye sheekhaasoo ka muxishoon in lagu dhaho maanta sheekhaas waxaasuu garan waaya ka muxishoon laakiin ilaahay subxaanahu watacaala daraaddii qof u hadlay weeye qof ilaahay subxaanahu watacaala ka xishooday waxa weeye sida dhabta ayuu uga xishoodaya maxaa yeelay qofka su-aal aadan hubin ama su-aal aadan macnaha ogaatay inay khaldan tahay in qofkii aad ku sii daysid waa khalad iyadaana xishoodkii ka mid ah qofkan waa inaad ka xishootaa maxaa yeelay diintu ku dhaqmaya qofkan baa laga yaabaa inuu su-aashii ku dhaqmo oo diintu ku dhaqmo haddaa maanta been u sheegtid dee waxaa ogaataa adiga iyo qalbigaaga iyo naxariisnimadaada ku tusisaa haddii aadan naxariis lahayn iimaan iyo diinna lahayn qofkan waa u sheegaysaa khaladka waad ka qaban maysid maxaa yeelay adigiibaa bilaa diino oo adduunyo doonaya oo in lagu ammaano doonaya laakiin haddii aadan doonayn in lagu ammaano oo macnaha dadka agtiisa aa ka doonayn ay ilaahay daraaddii subxaanahu watacaala kaa tahay shay kasta waa u marsaa waddo kasta waa u marsaa intaas ayaynu kusoo koobanaa waxaa la doonayaa haddaba in xishoodka la fuliyo in xishoodka dariiqiisa la qaato ayaa la doonayaa in makaarimul akhlaaq aan la dayn oo lagu sifaysnaado maxaa yeelay intaa dhalinyarada tahay kii dhalinyarada ahow way ku anfacaysaa khaasad ahaan dhalinyarada way anfacaysaa makaarimul akhlaaq iyo xishood 100% maxaa yeelay beri ka maalin waa weynaanaysaa mustaqbalka kuu soo socda insha allahu tacaala haddii uu ilaahay ku gaarsiiyo waxaa ogaataa inay ku anfacayso oo beri aad dadka ka noqonayso sidii calan oo kale ayaa dadka ka noqonaysaayo waxaa la dhahaa ninkaas waa nin akhlaaq wanaagsan waa nin wanaagsan maxaa yeelay waxa is soo bartay adigu in badan is soo bartay oo dhalinyaradaadii aad kusoo tababacday soo bartay waa soo dadaashay markaana mustaqbalkaaga una ayay ugu wacan tahay maaha muhiimadu in hadeer macnaha lagu amaano waa meel sare ku gaadhid laakiin almuhiimadu waxa weeye in ilaahay subxaanahu watacaala ugu dhawaadid raaxo iyo qalbigana uu ku dugo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu